عقاشن odayadan iyo waxgaradkani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xirlaaliyaha gobolka Togdheer Jaamac Ducaale. Caqaashan iyo odayadani waxay fariin u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoona sheegay in laga dul talaabsaday sharciga waxaana kamid ah hadaladoodii. Madaxweynaha aanu dooranayo xiriirayihii guud qarankow wasiirkii cadaaladda maxkamadii sare gudoomiyihii maxkamadda sare ninkan waxaan ka nahay mushkati ilaahna uu waashatoona mushkati baan ka nahay ninkan hal la qabto halka wixii ka dhaca ee ka yimaada labada beerood dhexdooda wada marta waxa la yiraahdaa kabaala yar 30 beerood bay martaa 2 mitir iyo badweey dawladda Soomaaliland min wasiirka dakhiliga waa looyahay waa la xukun baa ka dhacay nimankaas iyagoo fulintaas ay ku socoto bay dhulkii dhisteen waa taa la sii daayay wixii halka ka dhaca Jaamac Ducaale qaba ninkaas iska horimaad buu ka wadaa Burco qabyaalad buu ka wadaa inuu dadka isku dilaabo ka wadaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare xeer ilaaliyaha guud wasiirka cadaaladda tii ilaahay waa maqan tahay oo hawaya waa ku soo socotaaye ilaahayna uga dacwoonay ninka in gobolka shaqaaqo ka wadaa la qabto oo gobolka laga eriyo oo waxa weeyaan xeer ilaalinta laga casilo oo aan meel kale la geyn wuu fasaadiyay meesha la geeyada wixii halka fidna ka yimaada Jaamac Ducaale ka mas'uula xeer ilaaliyaha gobolka ka mas'uula ilaahay ma ku sheegnay madaxweynuhu ma ku sheegnay wasiirka cadaaladda ma ku sheegnay xeer ilaaliyaha guud xukuumadda ma ku sheegnay reera ah oo marshiciba oo maalin walba cid ku darsanto oo kordha oo dad lacag la daba joogo beerahaas maxkamadda gobolku way xukuntay sharcigoodii baa la hayaa waa 55kii xukuumadii oo dhan maxkamadaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka gaareen oo dhan baa la hayaa fulinihii baa la hayaa waxaan mushkil ka nahay annagu aan mushkil ka nahay beeshaas u keenay xeer ilaaliyaha sasukan ummadda annaga dib u lageliyay beelihii buu isku dhufanaya dadkii buu isku dhufanaya maalin walba waxa soo kala sameeyaa waxaanu leenahay ninka hadda magaalada wuxuu ku hayaa hawl buu ku hayaa dadka waa isku diraya mushkati baa ka nahay xeerliyaha saasukaya keenay oo ka shiraya hadna ka qabto xukunka beerta ninkaas beeraha waxay ka soo dhamaadeen xukuumadda qaranka maxkamadda qaranka oo dhan iyo dib u eegid way ka soo dhamaadeen fulin bay Burco ku yimeen in fuliyo oo la fuliyo ahayd si fulinta ay ku jirtay yaa ninkii xeeryaha gartiisu tawbiisu hashadiisu ahaa inuu garta oogo oo maxkamad ku hor wax garsoore ka hor oogo oo yahay waxa saa dhacay maxkamad go'aan ka gaadho wuu soo garsoore noqday oo ka garsooray haddii waxa xaqna wuxuu lahaa inuu eegayo inuu xukun rido maahin laba xukun oo kala jaaru soo saaray mid 8 bisha midna 12kii midna waa ka daraabay midna wuxuu waan oolay nimanku xaq darro ku xiran yihiin kana ka bixin saas ku sii daayay marka dadku isku diraya maxkamadda ka soo dhamaaday yani beerka iyo xukuumadda ka soo dhamaaday jamhuuriyadda oo dhan ila maxkamad sare dib u eegid intaas oo soo wareegtay yusra u xukuumad warta ku qaatay sida xaakim ka noqday ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga ee SBC magaalada Burco.